shalay barnaamijka aan soo gelinay su'aalihii iyo jawaabihii shacabkayga maasha Allah qaar baa ka soo jawaabay jawaabta laakiin may wada jawaabin dhamaantood way assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idil ahaantiinba meel walba joogtaan waana salaameynaa ramadaanul kariim shalay barnaamijka aan soo gelinay su'aalihii iyo jawaabihii shacabkayga maasha Allah qaar baa ka soo jawaabay jawaabta laakiin may wada jawaabin dhamaantood way khaldeen qaarna way saxeen marka insha Allah taala waxaan gudbinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo intii soo jawaabtay ayaan halkan ooga maartay ooga mahadinayaa asxaabteeda ugu xiran ee soo jawaabtay iyo intii khaladayba waxay khaldeen insha Allah taala waan nasixi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah taala waa guda galeynaa barnaamijkeenada waa Somali Action fadlan ku soo dhawow ninka ugu horeeyo waxa la yiraahdaa Khaliif Barqad baa la yiraahdaa maasha Allah Khaliif Barqad wuxuu yiri maasha Allah Sheekh Shaakir horay u soco waana bogaagiyay maasha Allah waa maadsanta aad baan ku salaameynaa dhiirigelinta aad dhiirigelinayso Allah ku barakeeyo adigana waxa ku xugo aadan sheekh baa ku xugo aadan sheekh wuxuu yiri dadaal sii wad akhi yiri maasha Allah tabarakallah ramadaan mubaarak insha Allah waan isku dayi doonaa buu yiri su'aashaas waan isku soo dayi doonaa buu yiri jawaabahaas buu yiri marka waan isku soo dayi doonaa buu yiri jawaabahaas ninka xiga waxa la yiraahdaa abday bath baa la yiraahdaa wuxuu yiri su'aasha koobaad Jacfar bin Ali Talib buu yiri waa aad buu uga jawaabay laakiin Ali kuma jirto Ali ma ahan waa dadaashay waa saxsan tahay Ali ma ahan Jacfar bin Ali ma ahan Jacfar bin Abi Jacfar bin Abi Talib Ali gaas Abi baa yaa ku jirto waa dadaashay waa saxsan tahay su'aasha labaad waxa tiri Ummu Yaasir baa tiri waa khalad Ummu Yaasir baa tiri aniga Ummu Yaasir baa tiri su'aasha labaad waa khalad su'aasha labaad Ummu Yaasir baa tiri waa khalad waa Sumaya bintu Shayba qofkii ugu horeeyay shahiida saxaabiyadii ugu horeysay shahiida Sumaya bintu Shayba tiri adigana waxa tiri Ummu Yaasir baa tiri waa khaladay su'aasha saddexaad waxa dhahday Ummu Khadija bintu Khuwayya waad saxsan tahay waa good maasha Allah waad saxday midaas su'aasha saddexaad waad saxday su'aasha afraad waxa tiri Nabiyullaahi Ayub 18 sano nabiga xanuunsanaa waa Nabiyullaahi Ayub baa tiri waad saxsan tahay maasha Allah Allah ku barakeeyo su'aasha afraad waxa tiri su'aasha shanaad waxa tiri Uthman bin Affan baa tiri waa maasha Allah ومنكو داهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونكي ملائكته كحشوتي محاني اوغي حشون واي وعثمان بن عفان وتصحسنتها جود ما شاء الله اد بعد صحسنتها سؤاش اللي حاد ورالكي وحو يري مداس ما غراناي بو يري سؤاش اللي حاد waxay ahayd afarta gabdhood oo Ilaahay uu raali ka noqday bay ahayd waxa tiri ma garanayo aan ku faa'iideeyo ma sha Allah ta'ala waa dadaaleysa aad baad u dadaaleysa su'aasha koobaad gabadha koobaad waa Aasiya oo Fircawn nacratullaahi calayhi gurigiisa ku noolayd Maryama oo Nabiyullaahi Ciisa dhashay midda saddexaad waa Khadija Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa Ummu Khadija bint Khuwayya mid saddexaad midda afraadna waxa waayo Faatuma bint Muhammad Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam gabadhiisa Faatuma bint Muhammad waxa tiri midda lixaad waan garan waayay waa ku faa'iideeyay midda toddobaad waxa tiri Nabi Suleymaan baa tiri waa khalad aniga waxaan ku weydiiyay nabigii intuu doon soo raacay dadkiisa ka soo carooday intuu doon soo raacay doontii ay la qarqartay oo leeyahay doonta waa in qori tuur la suubiyo ninkii maartay qoriga u soo dhacaan waa laga tuurayaa saddex mar bay qoriga tuuraan magaciisa soo baxay nimankii doon saaraa waxay dhaayeen waa nin saalix oo wanaagsan aan ku celino way ku celiyeen mar labaad magaciisa soo baxay way ku celiyeen mar saddexaad magaciisa soo baxay kadib ay doonta ku tuureen badii buu ku dhacay nibirigii baa liqay markaasuu nibiriga calooshiisa gudihiisa hoostiisa wuxuu ka yiri laa ilaaha illa anta subhanaka inni kunta min adh-dhalimin buu ka dhahay nabigaas waa nabiyullaahi Yunus
نبي الله يونس ويو وحاطر النبي سليمان وخلد سؤاشي سديدات وحاطر أبو بكر صديق وتصحصنت هاي سؤاشي سقالات وحاطر النبي إبراهيم نبي إبراهيم معها نبي إلهي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين انتو يري إلهي وحن كابريي هاي دلن أدقونا السينين وحيري وح دحلا عم أولاد أو دين تدحشا ما أولاد مارتي إنجيل ياري دحلا إله أولاد دين تدحشا السين وكو إلهي سبحانه وتعالى ويري يا زكريا إنا نبشرك وحنكو بشاريني اسمنا نبشرك وحنكو بشاريني غلام ويل اسمه مقعيسى أو يحيى اللي يرادو يحيى لم يجعل له سميا أو وحلا مقعة أنسجرين نبي يحيى وحاب إلهي سبحانه وتعالى مقعيسى سوبحيي والنبي قاس نبي إبراهيم معهن تيطبنات واد خلدي وحاطري آسيا بات ما تيطبنات حاطري خويدة باتري معهن خويدة تيطبنات وحاويو gabadhii aayada quraanka ay ku soo degtay oo saxaabigeedii intuu dhahay hooyada oo taayba adiga tahay hooyada oo kale oo aayada quraanka ku soo degaysay waxa la yiraahdaa qawla bintu Tha'ab la yiraahdaa su'aashaas waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay su'aashana xigto waxa weeyo Khadar Abdi ma sha Allah ta'ala Khadar Abdi وحيري سؤال كوباد وجعفر بن عبد مطالب ويري واسحي سمية بنت شهيبة واسحي خديجة بنت خوية واسحي نبي الله يونس واسحي وحيري عثمان بن عفان واسحي وحيري أفرت قبل هذا الرال إلهي كان قضي وآسيا وحيري مريم وحيري خديجة يا فاطمة قدر خير الله كسير ما شاء الله أد واسحي سؤال الضوات نبي يونس بويري وصحي سؤال سديدات أبو بكر صديق بويري وصحي سؤال سجالات نبي إبراهيم بويري معها والنبي الله زكريا هذا أنا أكون صحه نبي إبراهيم بويري والنبي الله زكريا وما هتسنتها وأكون صحيا سؤال وحيري طبنات غولة بنت تعب واتسحدي غولة وقبلي أو مارت آيات القرآن كوسو دكتي نكاس خضر عبدي الله أكبر كيو هل خبس وخلدي وحو خلدي سؤال شاهد نبي الله زكريا بو خلدي والنبي إبراهيم بو كدغي نبي الله زكريا ويو نبي الله سبحانه وتعالى ويلك أو بشاريه وما تصدهي وسؤال شيء نحكته وحكو حوق الظاهر عثمان إن شاء الله إلهي هنا وافجيه ويري أسيق wax su'aalo ma soo dhiibanin daahir waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay walaalkay khayr Allah ku siiyo su'aasha afraad ninka xigo waa Abdallah wuxuu yiri su'aasha saddexaad bisan sheegi kara waa Khadija bint Khuwayya yiri Abdallah wuxuu yiri Khadija bint Khuwayya khayr Allah ku siiyo waa su'aasha hal su'aal buu soo dhiibtay waa Khadija bint Khuwayya yiri khayr Allah ku siiyo marka وما شاء الله تعالى لما dadkii comment soo wada dhiibtay way wada mahadsan yihiin halkan mahad ilaahay ka soo ugu diraya waxa weeye waa in la kala faa'iideysto bishan Ramadan wixii khayr ah waa in la kala faa'iideysto waa in la barto anbiyadii iyo nabiyadii iyo saxaabadii iyo dhammaan waa in la barto waa khayr waa ajir wanaagsan insha Allah ta'ala waa mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin سؤال شيء إن شاء الله جوابه النبي إمام دون هبين ضب هدو إله يرادو حدنا وأنا السلام يا دمانتين وتكود جوابتين سؤالي حلال حبة أو خلدي مو يعني أنت كلواتك جوابتين أد بدو ما هتسنتين الله إنه بركايو هنلو جد دارو مارت إلا برتو مارت تابع التابعين إلا النبي يدي يوحي دمانتين وما هتسنتين وأنا السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله